ووري ستو سأي أبلابطي بيكسيجي سوماليدا أمريكان وايي وجود بيجي وكسر العليني إن طلابو أدق وكقاعد دونا سوماليدا إن كبدن بقول أسكري وكو بوليس كأيس كلو يقاني لو وتر جلي قبشة ضدك سوجلوتيا يولي بديبو إيجستا شرعية أي هايستان أيا بلابي إن dadka Soomaaliyeed ay weydiiyaan sharciyada waliba iyagoo baasaboor wata ay dhahan waad xiran tahay ma dhaqaaqi kartid laba wiil oo Soomaaliyeed ayaa hadda lagu bilaabay oo baasaboor haysta qaarna waaba lala baxay oo iyagu wali way maqan yihiin oo meel ilaa iyo hadda lagu hayo wax lagu haysta midna lama kala cadaynin si loo qaatay way ku maqan yihiin Trump wuxuu maalmahan oo dhan soo celcelinayay talaaban qaadayna laakiin dad badani ma aysan rumaysnayn oo waxa la lahaa war Trump wuxuu ka qaadi doonaa haddaba 25 sano rag joogay oo citizen oo baasaboorada haysta oo caruuro badan ku dhalay oo dhaqaale badan ka sameeyay oo wadanka yaqaana oo luuqada yaqaana ayaa lagu dhagay oo dhakab la siiyay boqolkaasi askari halka la geynayo labada magaalo ee la geynayo dhalinyarada la xiray muuqaaladooda iyagoo hadlaya oo warbaahintu ay wareysanayso sida ay uga fakadeen Trump oo mar kale yiri Soomaalidu waa qashin malaayiin dollar ayay naga dhacaan dalkeenana waxba ma soo geliyaan dalkana waxba ma soo geliyaan boqolkiiba 89 waa cayd ku nool maxaa noo keenay waxan oo ay noola joogayaan maxay noola joogayaan talaaba ayaan ka qaadayna waan celinayna maayarada magaalada Santa Paul iyo Minneapolis oo ayagana si weyn arinta uga hor imaaday muuqaalkan ayaan idin kula wadaagi doonaa intaas oo dhanba iyo qodobo kaleba waxa kale oo rabaa inaan mid iyo labo ka idhaado Soomaalidii waa hurudaa iyadina waa la ugaarsanoo ciidamada loo soo diray sharciyadooda dib u eega green card-kooda dib u eega deganaanshaha ay wadanka ku joogaan dib u eega waxay ka shaqeynayaan dib u eega sidan dib u eega dagaal Soomaali oo toosa socda Soomaalidiina waa aamusan tahay tii federaalka iyo Soomaaliyeed dadkeeda la aflagaadeynayay ee waa tuugo waa qashin la lahaana iyadana maysan hadal maxay tahay sabab xagee wax ka jiraan maxay dadku dibad bixi laayihiin maxay arintan uga hadli laayihiin maxaa dadkan aamusiyay bal iyadana waa arin taagane mid iyo labo ayaan ka eegi doonaa soo dhawaada idinkuna aragtidina igula wadaaga qaybta commentiga aan ku bilaabay Trump iyo kooxdiisu waa bilaabeen beegsiga iyo bartilmaameedyada dadka Soomaaliyeed oo ah bartilmaameedku waa Soomaali qodbadu waa Soomaali qaqabashadu waa Soomaali ciidanku Soomaalida ayay bartilmaameedsanayaan waa ciidankaya wax kale laba eegayo bal intaan horta dhinacyadaas ana dul istaagin waxay horta wiilasha Soomaaliyeed codkooda ila dhageysta. Yes. What was that about? I don't know. These guys just randomly take me off. I'm a citizen of this country, and they take me off and they hold me. They detain me here. I don't know what they're doing. I have no idea. These guys are so stupid. I don't know what they're talking. They check what they want to see. My passport. I give my ID. I give my passport ID. Everything. They didn't want to listen to me. They want to talk to their supervisors. And you said they take until Wait, I don't know. labada si wiilay u jeedaan iyagoo socda ayaa dhakab leeyay sharcigiina waa wataan baasaboorradii bay wataan waliba mid kamid ah 25 sano ayaan wadanka joogaa buu waa 25 years ciyaar ma aha 25 sano ciyaar ma aha Trump buu wax yar ka sukayayba maxaa nin walba reerkooda meel buu ka imaaday laane 25 sano isagoo cunugaaba la keenay markaas oo aan ilaa ninka kama weyno foot kama weyno meelahaas kama weynaba doogu bato inuu ka yaryahay waa suurtagal si kasto ay noqotaba Soomaalida waa bartilmaameed ma jiro wax la leeyahay 30 sanaan joogay 40 sanaan joogay 50 sanaan joogay iyo 5 bilood baan joogay wax la kala dhahaya ma jiro bartilmaameedka koobaad ee ciidanka ICE ee Mareykanka waa Soomaali adiga Soomaalidana waa hurudaa oo waxa laga yaabaa waliba inaad adigu istaajuusayso oo saaxiibkaada kale ICE halkan ku jira leedahay 100 askari ayuu u soo diray
ninka la yidhaahdo Trump iyo weliba baarayaal heer federaal magaalooyinka mataamaha la yidhaahdo ee Santa Paul iyo magaalada Minneapolis oo Soomaalidu ay aad u degan yihiin ayaa inta waxa weeye ugu badan focuska la saaraya ama diiradda la saaraya wax kale lagama hadalhayo gudaha Mareykanka warbaahintu waxay aad u qaada dhigaysaa talaabada ku wajahan Soomaalida ee lagu bartilmaameedsanayo ciidanku waxay amar ku qabaan iyo waliba baariyaashan heer federaal in ay dib u eegis ku sameeyaan baasaboorada ay haystaan Soomaalida ee ay ku joogaan dalka ma aha oo kaliya kuwa immigrant-ga la soo qabanay no kuwa basama waxa la qabanaya kuwa baasaboorada leh oo dib u eegis lagu sameynaya Trumpna horey buu sheegay oo green card-kooda ayaan eegaynaa buu yiri dhaqaalihii iyo wixii xuquuqdii ay Mareykanka ku lahaayeen inta badan amar ayaa lagu bixiyay in laga jarto oo sababta waxa weeye horey buu Trump arinta uga hadlay haday noqoto TBS haday noqoto Viber haday noqoto waxa weeye guriyihii iyo wixii raqiiska ay deganaayeen ID ay qaadanayeen wixii oo dhan dib u eegis baa lagu sameynaya waa wax leenka ku jirta oo leen ab ka saaran iyo wax mar horeba amar lagu bixiyay ninkan marka Trump isagu dagaalkiisu waa cad yahay Ilhaan Cumar buu intuu qabsaday buu weerar afkaabu dagala kaga dhigay arbo intaa ugama hadhine Soomaalidiina waa si daray no government no military no water no flan no waxa ma haystaan buu leeyahay waxay haystaan ba ma jiraan wax allaale wax ay haystaan ma jiro buu leeyahay waa dad wuxuu yiri 88% cayr ku nool buu yiri malaayiin dollar bay sanad walba naga urursadaan buu yiri waxbana kuma soo taraan buu yiri dalkeena waxba kuma taraan maxay dadka wuxuu yiri 88 cayr ku nool maxay noola joogayaan buu dadka wasi cilinaa buu waa cilinaa buu waxba dalkeena kuma soo koreen inta waxa si dheer nin askari ah oo askartii Aydid General Aydid la dagaalantay ee Muqdisho waagii burburkii 91kii markii dawladii Soomaaliya ay burburtay ciidankii Mareykanka haye ibaaday ee lagu baabiyay halkaas ayaaba isagana la keenayba oo soo fadhiistayba Soomaalidu waa dad tuuga horta tuugadan annaga gaarka noo maxay ahaydeen dadka kale to aan waxa weeye aan lagu sheegayn Afrikaanka kale wax xadan miya wax ma qaadan karaan miya boy Soomaalidii wariya xal wax weeyaan hadal inagu daarinay camera dheer baa meel u saaran Trump oo kolba dhinac kaga eega waxa ugu weyna waa dad musuq badan oo bob ah oo dhulkii boobaya oo lacag malaayiin dhacaya oo balaayo dhacaya oo sidan dhacaya way waxaas uu iska saartay mooyane waa nacayb oo Soomaalidu u qaba weeye taasna waxay ka soo bilaabatay arrimihii siyaasadeed ee markaas isaga iyo Ilhaan Cumar u dhaxeeyay Soomaalidii kale ayay baasha u soo gudubtay oo ay saameyn weyn ay run ahaantii ku yeelatay ilaa haddana ay socotaa Soomaalidii marka arintan ay ku dhacday iskuma soo bixin waxa la rabaa inta la isku soo baxay in la yiraahdo anaga aysna ma qaban karto sharci oo ma haysato nooma soo dhawaan karto waan la dagaalaynaa waan iska celinaynaa sharcigan kula dagaalamaynaa maxkamadahan kula dagaalamaynaa inay inta isku soo baxaan dibad baxaan oo ay dhahaan been weeye wuxuu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka wuxuu noo beegsanaya anagu garan mayno wuxuu naga raba anaga ma garanayno cadaawada inta dhan uu noo hayo in isaga caalamka lagu soo jeediyo oo la yiraahdo caalamka ha arko warna arka waana la beegsanaya anagoo Soomaaliya in la yiraahdo la rabay Soomaalidu waa iska shib ma hadlayso shib madaxdii madaxdii Joker Frey iyo waxa uu hadlayay ninka la yiraahdo ninkan Santa Paul ka soo baxa ayaa u hadlay oo leh Soomaalida waa difaacayna la fahmaysa dadka ka xiriirsan Joker Frey iyo waxa weeye Santa Paul ninka ka soo maayarka Santa Paul waxba kuma qaban karaan waxa la rabaa waxay wax kugu qaban karaan inaad ismoojiso banaanka dhimaato soo dibad baxdo soo qaadato border soo qaadato la dagaalanto tiraado qof askari iimaan karani ima qaban karti I have a right inaad tiraado waraaya xuquuqda leedahay ana leh maxaa ay sataatay aniga waxa weeye muwaadin baan cashuur bixiya maxaa taadu oo waliba ganacsatada waaweyn ee dhaqaalaha haysta ay dadka hor kacaan oo siyaasiyiintu waliba iyagana ay hor kacaan Soomaalidu waxay leeyihiin matalaad fara badan bay leeyihiin waxay ku jiraan golaha wakiiladii waxay ku jiraan senataradii waxay ku jiraan waxa weeye dawladii hoose oo dhan bay ku jiraan haday noqoto city council haday noqoto wakiilada kale ee dawladda hoose oo dhan bay ka buuxaan dawladaha hoose oo dhan bay Soomaalidu ku jiraan why Soomaalidu aysan arinta uga hadlaynin
hay-adaha xuquuqul insaanka ayay ka buuxaan oo ay ka hadli karaan qaramada midoobay ay fadhiyaan oo ay dhihi karaan aniga dadkaanada jaaliyadaha ee Mareykanka ku nool beegsi gaar ah lagu hayaa maxaa loo beegsanayaa bay dhihi karaan madaxweynaha maxaa ku dhacay oo noo beegsanaya dowladda federaalka ay baa joogta naftirkeeda oo qashin lagu tilmaamayo oo maalin walba la aflagaadeynayo oo ayadana iska aamusanayo hadlaynin dadkan maxaa wada aamusiyay maxaa la dhacay maxaa dhacay maxaa la suganayaa madaxweyne dhan baa dad Soomaalidii meeg u qaatay meeg waa madaxweyne dhan oo dal waxa weeye Mareykan ayaa meeg u qaatay Soomaalidii oo jaayfeynaya oo aflagaadeynayo oo beegsanaya oo ciidamo u diraya oo dhalinyaradii qabanaya xamaalanaysay dowladdu weliba gaar ahaan dowladda federaalka waxay sugaysaa inta la soo tarxiilay dadkan maxaa loo hayaa hadii la soo tarxiilo hadii la soo qabto maxaa loo hayaa waxaa la rabaa marka in Soomaalidu ay fadhiga ka kacdo laga dibad baxo arrintan dowladda federaalku arrinta inay ka hadashaa iyadana muhiima dowladdan hatta Axmed Cali Fiqi ka hadlayay qofkii hadlo mucaarada u jawaabay maxaa daaray waraarinta maxaa daaray war dadka maxaa daaray hatta waxa wasiir uu jawaabay leeyahay shibun abo ninka yariga celiyo ninka weyn ugu sii daadi yaad moodaa walidinku waa isku jawaabayseen oo mucaaradku waa loo jawaabayay ninkan afka marmaroorinayay waalan reerkoodiba ay naceen caalamka dhan laga nacay maxaa loogu jawaabi lahay maxaa lagu qabaa ninka maxaa lagu qabaa oo loogu jawaabi lahay ma loo jawaabo waxaa la rabaa marka Soomaalidu inay fadhiga ka kacdo beegsigii waa bilowday dadkii waa la beegsanayaa madaxdii Soomaalida waa aamusan yihiin dadkii dhalinyaradii Soomaaliyeed meel walba waxa weeye askari baa loo istaajiyay waliba hadda 100 askari ee magaalooyinkaas la geeyay culays badan bay dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed duqeydo dhalinyarada ay ku keeni doontaa sababta waxay u haystaan amar madaxweyne inay baaritaan ku sameeyaan waxa la socda baaritaano caalami ah la socda green card-ka waxaad ku imaatay waa lagu weydiin doonaa waxa lagu leeyahay waxaad ku soo gashay marka hore oo markaad soo galaysay su'aalaha la khalkhalday sidan baa lagu sameeyay waxba la khalday warqad baa ka maqnayd markaad soo galaysay passport baan haystaa warqad baa ka maqnayd markaad soo galaysay lagu leeyahay marka waa halis weyn oo Soomaalida run ahaantii soo wajaaday marka dadka Soomaaliyeedow quraan akhrista adkaar akhrista dadka qurbaha joogan ka hadlaya ilaahay bariya masaajidda gala mudaharaadyo sameeya madaxdiina u yeera waxa weeye isuruursada isku duubnaada intaas aan faraya dowladda Soomaaliyeed waxaan leeyahay bal arrinta laga hadlo Trump oo waxa weeye xoogaha xisbiga JSB madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la sheegay wuxuu la mataamay xisbiga Trump uu la mataamay maqlayay waxba ma maqlayay oo qandaraasyo waaweyn baa la siiyay maqlayay ninkii Elon Musk iyo qoladiisa iyo waxba la siiyay waxba ma maqlayay heshiis